Hay'adda gargaarka bini'aadamnimo ee Oxfam ayaa soo saartay warbixin tilmaamaysa in cudurka COVID-19 uu sii ballaariyay farqigii u dhaxeeyay maalqabeennada iyo masaakiinta. Waxaa warbixinta ku cad in intii cudurka uu jiray ay 2 jibaar noqotay hantida 10 qof ee ugu taajirsan dunida. Hay'adda ayaa sheegaysa in loo gudbay sanadka 2022 iyadoo uu jiro walaacan horey loo arag. Warbixinta ayaa loogu magacdaray Inequality Kills oo looga jeedo sinaan la'aanta geeri ayay sababtaa. Waxay intaasi ku dartay in sinaan la'aanta hadda caalamka ka jirto ay tahay mid baaxadeedu lagu tilmaami karo shaqaaqe dhaqaale oo ka dhan ah dadka iyo dawladaha ugu saboolsan dunida. Hay'adda ayaa warbixinteeda ku salaysay in xeerarka iyo go'aamada siyaasadeed ee wadamada ay inta badan yihiin kuwa u daneynaya maalqabeennada iyo dadka awoodda leh, taasoo saameyn ku yeelatay aqlabiyadda muwaadiniinta caadiga ah. Oxfam ayaa tilmaamtay in shirkado badan oo waaweyn ay xakameeyaan qaybsashada talaalka COVID-19 oo haddii ay fursad u heli lahaayeen lagu badbaadin lahaa nolosha malaayiin ruux oo danyar ah. Warbixinta hay'adda waxaa ku cad in rag ay tiradoodu tahay 252 ay hantidoodu ka badan tahay 1 bilyan oo ah haween iyo gabdho ku nool Afrika, Latin America iyo jasiiradaha Caribbean. Inkastoo maalqabeennada ay hantidoodu sii korortay sida ay sheegayso hay'adda Oxfam, waxay dhanka kale waxyeelo soo gaadhay dakhliga 99% ee aadanaha. Hay'adda ayaa intaasi ku dartay in dadka ku nool wadamada uu dhaqaalahoodu hooseeyo ama dhexdhexaadka yahay inay qiyaastii 2 mar halis uga jiraan inay u dhintaan COVID-19 marka loo barbar dhigo kuwa ku nool wadamada hodanka ah. Oxfam ayaa hoosta ka xariiqday in qaar ka mid ah wadamada dunida dadka saboolka ah ay ku dhawaad 4 mar u badan tahay inay u geeriyoodaan cudurka COVID-19. Waxaa isku celcelis ahaan dhanka kale maalin kasta cudurka u dhinto 21,300 oo qof sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee Oxfam International. Hay'adda ayaa dawladaha caalamka kula talisay inay awood u yeeshaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sinaan la'aanta sii kordhaysa ee u dhaxaysa maalqabeennada iyo danyarta. Waxay soo jeedisay in 10 qof ee ugu hantida badan caalamka in lagu soo rogo canshuur la xiriirta dhaqaalaha ay ka macaasheen caabuqa corona tani oo hadda la sameeyo oo soo saari karta lacag dhan $812 bilyan.